kulanti wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciida dhammaan waxaad leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaan ciid wanaagsan kula caam wa antum bil khayr waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa inuu ciideeda kale inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo isagoo nabdoon iyo dalkii Soomaaliya oo nabad ah barnaamijkan sida tooska ah waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdifataax Shirwaac waxaana si toos ah idinkaga imaanaya telefishinka Home Cable xaruntiisa magaalada London waxaa barnaamijka marti igu ah Cabdi Baadil Ibrahim kana mid ahaa fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed ee Bersamaadkii Cabdi Baadil ku soo dhawaad telefishinka Home Cable iyo stuudiyaha magaalada London waa maasantahay ciid wanaagsan aad iyo aad baan ku salaamay adiga iyo bahda saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa maasantahay ka hor intaan u horgalin taariikh nololeedkaada iyo Cabdi Baadil kuma maxaad ugu tala gashay ummadda afka Soomaaliyeed ku hadashay waa maasantahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaad leeyahay ciid wanaagsan maanta waa maalin farxadeed dhammaan muslimiinta oo dhan ay wada faraxsan yihiin waana maalintii isxafinta waad ogtiin adinka marka waxaan leeyahay waa ciida 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 ciid wanaagsan ciida ciida Soomaala ciida waa ciida 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 ciid wanaagsan ciida ciida مسلم عيدا عيدا عيد ونكسر عيدا على الفرن كود عيدا عفوات كود عيدا على الفيوم كود عيدا عفوات كود عيدا العيدة عروسة العيدة العيدة عروسة العيدة العيدة عروسة العيدة صوبنا العيدة العيدة عروسة Soomaaliya على الفرنسية قلب فرنكو عيدة دمان قلب فرنكو دawadayaasha waxay leenahay inaad naga iloobinaha buskudka iyo xalwada inaad shaashada noogu soo dhiibtaan Cabdi Baadil sidaan la socono waxaad kamid ahayd fanaaniintii Bersamaadkii wal Cabdi Baadil waa kuma صح Cabdi Baadil waa nin ku dhashay qalaf isla markaana ku koray Beledweyne Cabdi Baadil waa nin ku dhashay qalaf kuna barbaaray Beledweyne iyo xamar intaba Beledweyne Allah inta intaqaan ma garanayso Beledweyne marka inta markaan ka soo gudbo dugsi Quraan xamarna waa ka dhigtay Beledweyne waa ka dhigtay ubax kacanka xamarna waa ka ah Beledweyne waa ka ah kadibna waxaan ka qayb galay hirgelinta heesaha waayahay markii kuugu horeysay dabcan aniga reer Beledweyne ahay markii kuugu horeysay reer Beledweyne dugsiga Quraanka ka dhigatay wax noo sheegtay Beledweyne xamar waxaan si gaar ah u xiiseynaya Beledweyne maadaama ku dhigo aan ahay laakiin laba Beledweyne jiro Beledweynihii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe waxaan ka hadlayaa kuwii hore waa kuwii mataqaanaa Beledweyne waxa ka yimid fanaaniinta dhan waqti waxa ka yimid mataqaanaa Django waxaa ka yimid mataqaan Salax Qaasim waxaa ka yimid Said Khalifa waxaa ka yimid Cabdi Tahliil waxaa ka yimid Jim Sheekh Muumin waxaa ka yimid mataqaanaa hada fanaaniin badan ka yimid lama soo koobi karo siyaasiyiintana la mid Nuur Bidaar dadkan dambe ma garanayaan Maslax waxaa ka yimid mataqaanaa kuma soo koobi karo dhanka ciyaaraha iska badaaba waayahay iskuulkaadii kuugu horeeyay ee Beledweyne iskuulka igu horeeyay waxaan ka dhigtay Beledweyne Bundaweyn iskuulka Bundaweyn reer Bundaweyn waa garanayaan laakiin anigu waxaan ahaa howlwadaag maxaa kuu diiday Jibijaan iskuulka aado Axmed Warsame Saldhool Guure Saldhool Guure waa ka dhigtay shalay waxaa wataa kan waa galay على جمعة على جمعة يا حافظ كوشن وجوج جري ما فهمت
marka dhalinyaro badan aan aqaana halkan aan isku xaafada ahayn kolley halkan aan ka wada salaamaya kulli reer beledweyne marka waxaan leenahay ciid wanaagsan buundada ciyaartee beledweyn ku taale biyo lulata guudkood bartankeeda maahayn ya waayahay goormaad ogaatay cabdibaadil inuu fanaan yahay waxaan ogaaday mar aan dugsi macaa iskoolka aan mataqaanaa iskoolka dhexdiisaan ka heesi jiro break timeka waxaa dhihi jiray hees yaa heesaya cabdiqaadir cadow nin la yidhaahday aniga yaa ka heesi jirnay cabdiqaadir cadow fanaan u haasaya marka aan ogaaday waxaa ogaaday iskoolka guddiga riwaayadaa la sameeyey riwaayadaasa waxaa la yidhi waxbaad ka dhigaysaa ninkaasaa cud macaan riwaayaddii markaan dhigay unbaa xaafadda magaalada respecti gaar aan helay waxaa iri dee ma halkaa kasii wadid marka baab baa ii furmay mogta oo dadka ugu ixtiraamaan ixtiraamkan waa wax weyn yaa fanaane marka la yidhahdo de wax kalaa ku galaya mogta waxba haysan laakiin ixtiraamku waa wax weyn ma fahamte magacu ciyaar maaha waayahay marka laga soo tagay inaad baabuurkii ama iskuulka aad ka haystay is ogaatay inaad ma hal oran iyo hal abuur aad leedahay maxaa xigay waxaa xigay kadib adiga iskoolka dugsi dhexaan dhameeyey waxaa noqday kabanista kabanka garaaca marka kabanka hadda ka horaan allah naxariistay daa'uud ii garaaciray daa'uudna mashquuluu noqday daa'uud almasxaf mashquul markuu noqday waxaan iraniho maxaa dadku barbaraysaa maad adigu garaacati kabankaaga adiga tumo fanaanka hadduuna isku filaynna fanaan maaya 6 bilood aan isxareeyey kabankaygii yaan bilaabay heesta aan ku bilaabay xeed waa tuban kartaa waxaa heesta ku bilaawdo waxyar ma fahamta عندما تعي قد اسرماكو كدادجي وحيوه دري ماركيان ظلمي تردني دري كمان استياش waxaa u sheegaya mataqaana markaad heesiisaan dad waxaa jira kabanka markay tumanayaan waxaa codkii iyo kabankii waa isla socdaa kabanka waa la gaabiyaa codkana waa la dheereeyaa عندما تعي قد اسرماكو كدادجي وحيو دري markii aan dulimay samduni darray iyadoo dog dhex jirto daawanaysa ubaxo soo inta kale kuma dari karo waa iska kafto waa maalin ciidaya soo raaxada macday door magaday iska kuratay siday satimi heestaan ku bilaabay kabanista noqday markaas kabanista noqday fankan goorma ku soo biiray waxaan ku soo biiray heestaadii kuugu horeysay oo aad ku soo biirtay markii aad ka soo gudubtay su'aal aad u fiican heesteedii ugu horeysay ee aan baxda ee aan tartanka kow ku galay dadku dhan ay weydiiyaan waa dad hees la jecel yahay heesta ayaan lama yiraahdo amran baa la yiraahdaa amran laakiin dhalinyarada sii qaadqaado ayaanay u bixiyaan mugtahay arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kuu asteeyaa maanaya may gelin ifkana kuma naran weli lama amaanin amraanay allay lehe
saaray halistaa agtaydiyo beerkuu ag jooga oogadu ku faafo idleeyaanige amranay ma og tahay aragaaga oo qura kumaan dhibsaden adooyada aragaaga oo qura kumaan dhibsaden adooyada xanaan kumaan dhibsaden adooyada markii aan soo qaaday sida caadada ahayd qol ayaa laga soo gali jiray irida ayaa looga bixi jiray tartanka waxaa geli jiray dad aad u fara badan dareenkaada markaas uu ahaa horta qolka markaad gashid meeshaas waxa kugu sugayo nin kabanka garaaca 4 guddi ah Dalays Cabdullaahi Qarshe iyo mataqaanaa Sangub ayaa halkaa fadhiyay guddigii wax baaray weeye codka iyo wax kontrolay halkaas ay qalin iyo warqad haystaan halkan kabanistihi ayaa fadhiya oo kaban garaacaya Xudeyd halkaas uu ku fadhiya Allah ya raxma marka Xudeyd halka fadhiyo kabanka ku garaacaya xaqana dhowr kuraas taala qofkii ku baas imtixaanka xaqaas u gudbaya qofkii kalena uu baxaya marka group badan soo baxay waqti raas waxa ay hadii wariyada booska isi banay ani ma aragtay hadii la isoo eriyo anigu halkan ma eegaya tiyaatarka dibadda uga baxaya waa galay hees waxaan qaaday marka hees kana la ii tumay qof walba hees loo tumay marka heesta adiga ma dooranaysid maya waa lagu xafsiinaya waxa lagu leeyahay qaad saaste culayska عقوه قابل عيد الركي على شرقيعات في مرقبي على شاني في مرقبي marka meesha ugu daran meesha ugu daran meeshaas waa marka meesha lagu soo wada dhacay على شريعة meesha marka lagu dhacay على dhalinyaro annaga imtixaankan soo maray fanaaniinta waa u sheegaynaa dadkan hadda maaragtay imtixaanka sameeyaa la jarjaraayo codkii wixii dadkii soo hor istaagaan maaragtay playback u sameynayaan dadkani hadda ku yihiin iyo adinka oo soo maray taalantigaas dhibkaas imtixaankaas iyo walwalkaas farqi inta ayaa u dhaxay farqi waxa u dhaxay qofkan hadda dad badan waxa jira magac leh oo hit ah oo de kala arag xafladahooda la buuxinayo haddii ninka uu hid yahay kan ha ku heeso heestan ha qaado dadkana hor yimaado life ha u heeso marka waxaan u garanaynaa fanaan yaa dadka iska celin kara aniga heestan waan ku dagaal tegey rag baan iskaga celiyey banaankaasaan tegey guddiyaa loo sameeyey tartanaan ka qayb galay kowaan galay waxaa la yidhi ninkaa waddada ha loo banay mogta laakiin nin guri inta lagu xiray oo toonkii loo sameeyey oo loo toosiyey oo mikrofoonka qabsan la yiri bahalkaas haysay dadka dhalinyarada cusub ku qanacsan dadka fanaaniinta ee fanka wax ka yaqaan kuma qanacsana fanaaniin badan oo fiican waa jiraan laakiin ma oga ayagu inay fiican yihiin imtixaankan hadday soo maraan tareerin qaataan dee fanaan bay noqonayaan
waayahay cabdi baadil adiga xitaa waa heys kartaa moogta haddii lagu tutusiyo haddii lasoo sabray waxaan kaloo dimuqraadiga waa qaadan karaa waayahay sidaan la soconno 4 bisha May daawadayaal guud ahaan daawadayaasha ku sugan UK cabdi baadil waxa uu ku qaban doonaa waxaad ka arki doontaa shaashada ayaan idin soo saari doonaa hoolka iyo goobta lagu qabanayo xalfad weyn ayuu ku qabanayaa ama show weyn ayuu ku qabanayaa magaalada London afarta reer London iyo UK yaa la moogaan cid alaale cidii rabto telefoonada oo aad tigidhada ku gadan kartaan shaashada ayaan la idin soo saarayaa habeenkaas waa laba barnaamij isku jiro heesa kaban ah oo marka hore iyo iscafinta heesaha qaaciga ah dad jecel si fiican waa la qancinayaa ummadda markaas maxaa uu qaybta ugu horeyso dhan oo wada qaaci heesihii hore qaacigii dad badan oo kabanada jecel jiro si fiican qaybaha dambe waa musical jugta jecelin dhalin waqti heesaha jugtan waa idin wadnaa kabanna waa idin wadnaa fanaaniinta UK waa kala qayb galayaan insha Allah waa dhamaatay yaa kamid ah fanaaniinta waaweyn ee reer UK si dadku qof walba wax uu xiiseeyaa dadka kalena ay ugu soo qayb galaan waxaa kamid ah Django Danto way jirtaa dhinaca raaxa marka Ahmedey yarka Ahmedey Ahmed waxaa imanayso mataqaanaa nastaxindo Lucky way imanayaan waxaa imanayso mataqaanaa Amina Dol habeenkaas reer London intooda badan way imaanayaan daawadayaal yaa malaanin waxaa imanayo mataqaanaa sidoo kale waxaan rabnaa inaan idin sheegno in tigidhada ay intooda badan hore loo qaatay hoolka waa uu yar yahay waa 350 ilaa 400 ay maamulka sheegeen marka hoolka iyo idinka buuxsamin tigidhada ilaa hadda 200 waa igatmeen waayahay gabadha Samsam way imanaysaa iyada Samsam oo fanaaniinta kamid ah Djibouti waaw يا الله ديما الآن إن شاء الله. مجرى هي سعصب وهبين كسر وتركش. حكم إذا وحكم إذا هذا هذا هم قش الدنيا دي هم قش الدنيا مجاعل ما سوا جاعل هاي استاذ يلا هذا وعلاقة هذه زهر الدقن وكل أبوان كقاضي وأبوان دقدق لو قرن إنسان وحاسس كسوق قاضي ما شاء الله يا هل كان ينكسلامين أبوان دقدق مروضة هم قش الدنيا دي هم قش الدنيا دي لو قاضي وهي habeenkaas adiga reer London iyo reer UK u diyaarisay safar badan sida haba qashadunida bal naga maqashay erayadaas iyadoo aan dabka laga soo qaadin oo dadku inay arkin si hordhac u arkaan haba qashadunidu haba qashadunidu haba qashadunidu haditiyo gaaliso hadana joognay haditiyo gaaliso هذا نجومي هدوء أنا كجان قلب أنا كجان زهراء أنا كجان وحسها لو تلقى لي أفرت ماي يرر UK ومحسنتهين وحنا ذكر جينينا عين هو قاش وحدا فيه إن أبوان عبد باطل إبراهيم نتكسر قيب وشان شو جيسا وكي أوجه الرئي مدوينkan ugu dambeeyay oo London ku qabto isaga fanaanka Cabdi Baadilna waa reer Jarmal marti ayuu inoo yahay reer UK waxa lagu yaqaanaa marti soorka kaalintiina waa ina buuxisaan anagu soo gaarnay qaybihii gabagabada maxaa jeclaan lahayd in daawadayaasha guud ahaan caalamka ummadda Soomaaliyeed ku daawanayso maadaama maalmihii farxadda lagu jiro ee maalintii koowaad farxadda ay tahay ina muddo 30 bari ah la soo soomanay maxaa jeclaan lahayd inaad uga tagto waxa la ciid wanaagsan dhammaantiin ciid wanaagsan hees aad tiktok iyo meediyaha aan ku arkay oo qabsatay yaa u qaadaya habeenkaasna dad badan ay weydiiyay xafladda waa ka qaadi doonaa waxay ku jirtaa qaybaha qaaciga waa qaaci iyo muusig isku jiraan qalbigii muujay
إلا جركا دوغيد قلبي موجسنيني أدوكو جلعيا إناد إلا جوكتبان إناد إلا جوكتبان أدوكو جعله جحيجي جوهردي جحيجي معاني هكذت يقفنا جحيجي جوهردي جحيجي معاني هكذت يقفنا هكذت يقفنا هكذت يقفنا intaan soo gabagabayn anagoo soo gaarnay kooxdii dambe aad iyo aad ay u mahadsan tahay heestan ayaa loo qaaday heestan waxaa sameeyey cabdal yuusuf hanuuniye iima uu caddayn wuxuu u sameeyey laxankan isagaa leh marka hanuuniyaa la weydiin doonaa marka hanuuniye halkanaan kaa salaamayna adigii xaaskaaga carruurtaada ciid wanaagsan guud ahaan yaad jeclaan lahayd inaad ummadda soomaaliyeed halkan ka salaamto dhammaan ummadda soomaaliyeed muslimiinta dhammaan gobolada waa beri bahda saxaafiyiinta kulli say u dhan yihiin abwaaniinta waa salaamaya kulli majaajilistayaasha xitaa waa salaamaya marka bahda fanka oo dhan waa wada salaamaya caruurteydana waa salaamaya marka iyo inta walaalahayga ah dhammaan halkaa weliba si qaasa cabdirasaaq baadil oo xamar jooga halkaas ka salaamaya marka ciid wanaagsan guud ahaan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay ciid wanaagsan tiim uu ka mid yahay abwaan cabdi baadil ibraahim waxa ay wadaan barnaamij la yiraahdo Soomaaliya Iscaafiya barnaamijkan waxaa looga galeeyahay in guud ahaan ummaddu ay iscaafiso gacmaha isqabsato geeyiga Soomaalida degta lagu soo dabaalo nabad bashbash iyo barwaaqo shalay sidaan ahaan lahayn inaan noqono kaas waxaanu nahay gob jabtay manihin gun jabtay ama qarankii uu naga burburay muddo dhowr sano lagu jiro dawlad la'aan ilaahina waxaan ka rajaynaynaa in ma aragtay wadankii nooga dhigo shalay sidaan ahaan jirnay oo ay bahalladu na soo haweysan jirin libaxyada geeska Afrika ayaa nala ku tilmaami jiray barnaamijkan adiga iyo abwaanna badan oo reer London waxa uu gol leeyahay Soomaaliya Iscaafiya waxaan ugu kan leenahay waa kuwan garanaysaa Rwanda way isdileen waan iscafiyeen Rwanda dagaalka ka dhacay iyo sida isu cafiyeen oo maanta in nabad ugu wada naaloonayaan isma laha annaga marka maxaanu nahay annagu laftigeena kuwa dhalinyarada bilaabay marka anigu dhalinyaradan ka mid ahay mogtay dadka da'da yar yaan ka mid ahay marka abwaaninta bilaabaysa abwaaninta iyo suxufiyiinta ayaa marka hore arrintan ay u taallaa kadibna waxaan u gudbin doonaa dadweynaha marka sanadka soo socdo ayaa halkan ka bilaabin doontaa iscafintaas iyo socdaalka mideynta bulshada in aanu baawur weyn baynu iyo mataqaana karaysan doonaa speakerran saaranaynaa halkaasaan ku wadaysaynaa waa iskarab soconaynaa fanaanadan qor-aan macnihii ku qori doonaa maalintii iscafinta gacmaha isqabsanaynaa halkaasaan wada lugeynayna soomaalida qaarkiina soo raacayna waa arkaynaa wixiina soo raaca waa intaas waan ku guulaysano marka sanadka ku xigana soomaaliyaan tegi doonaa marka horeysa UK ka bilaabay qof walbo nabadda rabo jidka ha nala maro ha nala lugeeyo sanadkaas sanadkii iscafinta la yiraahdo sanad dambe laakiin gabdhahan iska hormarinaa gabdhaha maxaa sababay gabdhaha ugu hormarisay gabdhuhu waa naaski waa naxariis ayaga marka nabadda inta badan keeni kara waayahay ma jirtaa marka xiiso hordhaca oo aad ugu tala gashay barnaamijka iscafinta waxaa ka mid ah yaana sameeyay heestaas waxaa sameeyey farxaan colhaye oo jigjiga jooga salaamina farxaan colhaye caqligii cudumba lagu cilbaxaayo colaadaha dhexdeeniyo caabo lagaga haystaa bulshoy
عادل تلا بصارته بلشوي 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 عقدة يحمى تبع عالدير كتورو اسعف فيها دماتي صومالا اسعف فيها دماتي إساسا كميدا Soomaaliya إسعافية way hay daawadayaal marka iyadoo muusig ku shida maskana qaadan ayadoo عقلي عطوم بالغ وحيل بحايو عولادها دحديني وعاطو لغا غريستا طلوعي ورقتنا وعبارة يابلي بلشوي عيلادها دحديني دايا دايا عولادها عقلي عطوم بالغ وحيل بحايو عولادها دحديني وعاطو لغا غريستا طلوعي ورقتنا وعبارة يابلي بلشوي عيلادها دحديني دايا دايا عولادها بلشوي 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 عادل تلا صارته بلشوي 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 عقدة إيو حماتنا عالدير كتورو اسعف فيها دمانتي صومالا اسعف فيها دمانتي بلشوي 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 عادل تلا صارته بلشوي 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 عقدة إيو حماتنا عالدير كتورو اسعف فيها دمانتي صومالا اسعف فيها دمانتي heestaasi cafis ayaa inoogu dambeysay barnaamijkii ciida oo si toos ah uga daawanayseen telefishinka Home Cable waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah injineer Cabdifataax Cali Sharwaac tan iyo intaanu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waa bahda Home Cable UK iyo guud ahaan caalamka oo idinla sida iyo amaana Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh